Assalaamu calaykum soo dhawaada kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa qajaarka muxuu faa'iido ama waxtar u leeyahay ilmaha yaryarka ah ayaan kaga hadli doonaa muuqaalka soo dhawaada haddii ay tahay markii kugu horeysa ana soo booqataa subscribe noo sar gambalaalkana furo si fiidiyoyada cusub ku soo gaaraan haddii familka ay ka tirsantaana like noo sar asxaabtaadan u sii share garay soo dhawaada qajaarka muxuu faa'iido u leeyahay ilmaha yaryarka ah waayo mowduuceena maanta insha Allah faa'iidooyin badan ayuu u leeyahay maqaarka faa'iidooyin badan ayuu u leeyahay caruurta oo ugu horeyso dhanka maqaarka oo maqaarka wuxuu siiyaa inuu maqaarkii biyo siiyo kale oo maqaar qalalan uusan cunugii maqaarkiisa uusan naqan maqaar qoyan ilqabad leh qurux badan inuu noqdo dadka waxaa arkay maqaarkooda uu yahay qaleel dad jirkooda qaleel yoodo xataa haddii ay karin mariyaan oo kale jirkooda qalalan yahay oo waxaa arkaysaa wixii haddii ay mariyaanba aadan ogeyn meeshay ka martay marka dadka jirkooda qaleelka yahay oo kale qajaarka aad ugu fiican yahay maahan ilmaha kaliya inuu u fiican yahay dadka jirkooda qaleelka yahay uu u fiican yahay hooyooyinka uurka leh oo kale aad ugu fiican yahay qajaarka ayadana marka faa'iidooyin badan ayuu leeyahay qajaarka oo waxa ku kayaan dhahnay maqaarka oo kale inuu ka dhigo maqaar qoyan oo qurux badan inuu ka dhigo oo isha u fiican inuu ka dhigo faa'iidooyin badan uu leeyahay waxaa kaloo kamid ah in ilmaha uu ka saacido hurdada habeenkii in cunugii uu hurdo raaxo leh uu hurdo uu soo kacin li'aana wuxuu hurdada uga saacidaa wuxuu cunugii dareemaa dharag cunug inuu dharag dareemo uu caawa dhan uu si raaxo leh u hurdo oo asagina uu ku nasto hooyadina ay ka nasato li'aana hooyooyinka waxay u badan yihiin hooyooyin shaqeeyo oo ama banaanka ka soo shaqeysa ama guriga dhexdiisa ka shaqeyso hooyooyinkii waa kuwa shaqeynayo subaxdii oo soo kacaan oo kale caawa ku gaaraya shaqo marka haddii aad tahay qof shaqeey sidoo kale banaanka ka soo shaqeey ama guriga ka shaqeey maanta oo dhan aad taagan tahay waxaa tahay qof daalan oo caawa markii sariirta tagtid waxaa u baahan tahay inaad hurdo raaxo leh hurdid laakiin ka waran haddii cunugii haddii uu hal sano ka yar yahay oo kale ama hal sano uu ka badan yahay cunugii caawa dhan oo baahi dareemayo oo soo kacayo oo ku leeyahay caano rabaa ama badar isii oo cunugii inta soo fadhiisto badar rabaa ku leeyahay ama uu cunugii soo ooynaa caano iyo naaskaa rabo way dhib badan tahay maanta oo dhan qof taagneed aa ahayd caawa dhan aan ku darsan karin marka waxaa wanaagsan hooyooyinka inay ka fikiraan ilmaha maxay casho u siinayaan habeenkii li'aana haddii cunugaada uu yaryahay cunugana uu yahay cashada haddii aad cunuga u siisid cuntooyin ilmaha waxaa jiro calooshooda hawo ku sameeyo haddii cashada aad siinayso cunugii ay noqoto mid cunuga calooshiisa iyo hawo gelinayso oo kale caawa asagana ma hurdayo adigana ma hurdayso labadiina saakana oo isla taagneedin caawana oo isla taagnahaysin li'aana cunugii calooshiisii uu hawo ay ku xiran tahay uu qaab u saar uusan aqoonin ooyin kama baxaayo adigana cunugii qof maanta taagneed maanta dhan shaqo ku jira caawana haddana cunugii ku ooynayo waa dareemi kartaa dhibkay leedahay marka waxaa wanaagsan hooyooyinka haddii ilmahaada ay ku roon yihiin ama ay ku yaryar yihiin labadaba inaad ka fikirtid cunuga cashadiisii haddii cunuga yaryahay cashadan aan siinayo cunuga hawo may calooshiisa ku xiray mid labaad inaad ka fikirtid waa cunugan cashada uu cunayo dherag ma ku dareemaa oo mad yahay mid uu ku dhargaayo mida saddexaad cuntada waa inaad ka fikirtid cunuga cuntada habeenka uu qaadanayo ma tahay cunto fudud li'aana habeenka waxaa lasoo dayaa hormoonka korinshaha ilmaha marka haddii cuntadii cunuga uu qaato cunto culus ee tahay oo cunugan xilli hore uusan seexanin oo kale hormoonkii korinshaha in lasoo daayo habeenkii way adkaaya li'aana wuxuu jirkii uu dagaal kula jiraa cuntadii cunuga uu qaatay inuu la burburiyo oo laga shaqaysiiyo ayuu jirkii ku mashquulsan yahay marka cashada habeenkii cunuga faa'iido badan ayay u leedahay korinshiisa qayb ka tahay hurdadiisa habeenkii qayb ka tahay in cunugii hadduu yaryahay kale calooshiisa hawo ay ku xiran tahay qayb ka tahay marka cashada maxaa igu fudud maxaa ku tuuri kara cunuga maanta qadada waxaas cuna casha cadda kaasaan u kariyaa inaysan ka ahaanin oo waxaa wanaagsan hooyadii ka fikirtaa cunuga cashadiisa maxaa cunuga faa'iido u leh korinshihiisii hurdadiisii inuu asagu hurdo anigan aan hurdo labadeena aan kala nasano maadaama maalinta dhan isla taaganahay cunuga caawo cashada uu cuno hawo calooshiisa ma gelinayo marka waxyaalo badan inay hooyada ka fikirto waa intaasna cashada ilmaha aysan u karinin marka qajaarka waxaan dhahnay mida labaad hadda waxaan ku tilmaanay inuu yahay inuu ilmaha hurdo raaxo la siinayo sababtoo ah cunuga wuxuu dareemaa dharag haddii cunugaada uu hal sano ka yar yahay oo kale cunug uu aan ruugi karin qajaarkii uu yahay waxaa samayn kartaa waa u shiidi kartaa cunuga galbihii oo kale 11 sac meelahaas marka la gaaro waa cashadiisa asiisa waa siin kartaa harka cunuga markuu seexanayo marka caanihiisa waa cabi karaa cunuga dharaguu dareemaa
haddii laakiin cunuga hadduu cunug cunto qaadanayo uu yahay intaa jarjartaa waxaa u kor saari kartaa cuntadiisa cuntada markuu cunayo ku cunaa hadhowtina wuxuu dareemaa dhereg oo caawa soo kackicitaankiisa iyo oona ahay waa kaa yarahay li'anna qajaarka 90% biyo waaye cunugana dhereg ayuu ku dareemaa waxaa ku jira maadooyin caloosha dhereg dareensiiyeysa inuu cunuga dhergan yahay faa'iidooyinka kale uu leeyahay waxaa waaye in calool adayga uu u fiican yahay oo calool adayga uu daawo u yahay li'anna waxaan dhahnay 90% wuxuu ka kooban yahay biyo waa haddii mar jirkaada ay biyaha ku badan yihiinna calool adayg iyo adigo inaad kala badbaadin ayay u badan tahay oo ilmaha calool adayga uu kala qabo kale wuu u fiican yahay haddii loo shiido ama uu sidiisa oo ku cuno sidoo kale faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah in uu u fiican yahay dadka qaba cudurka sokorta dadka qabo wuu u fiican yahay haddii uu cunug yar yahay oo kale iyo haddii qof weyn uu yahay li'anna sokorta qajaarka aad u yar tahay oo sokor badan ma lahan aad ugu yar tahay faa'iidooyin badan oo caafimaad oo kalena waa uu leeyahay qofka sokorta qaba iyo dadka aan qabin labadaba faa'iidooyinka kale uu leeyahay waxaa kamid ah vitamin A ayaa laga helaa qajaarka oo u fiican badqabka ama caafimaad qabka isha iyo qurxinta maqaarka qofka maqaarkiisa uu noqdo maqaar qurux badan iyo caafimaad qabka tinta ayuu u fiican yahay vitamin A da marka intaas oo shay ayay kulmisaa oo qajaarkana waxaa laga helaa vitamin A sidoo kale qodobka ugu dambeeya waxaan ka dhigaynaa in haddii cunuga xasaasiyo maqaarka uu qabo kale ama meel ay wax kasoo maxaa la dhahaa jug ka siiyeen oo kale ama cunuga ay wax cuneen oo kale oo meesha maqaarka ay kalar yeelatay ama ay xanuunayso oo kale raali noqo hadaa shanqar dareemeysin haddii oo cunugii meel ay maqaarkiisa ama jirkiisa kamid ah jug soo gaarto ama ay wax ka cuneen oo kale ama xasaasiyo oo cunugii ay ku kacdo oo kale meel ay wax maqaarkiisa si ka naqdeen haddii qajaarka intaa jartid aa saartid waxay u badan tahay xanuunkii haaye iyo kalarka markaas ay lahayd oo kale in cunugii uu ka caafimaado uu ka bogsado ayay u badan tahay oo waxay u fiican tahay maqaarka li'anna maqaarka gudahana wuu kasoo daaweynaya cunugii maqaarkiisa maqaar qurux badan ay siinay haddii banaankiisa dhaawac ay wax ka gaareen ama cunugii maqaarka qaybta kore oo kale meel xanuunaysa ay jira wax ka cunan oo kale haddii aan intaa jartid qajaarkii korka ka saartid ayadan waxay u tahay daawo ayay u tahay oo gudahana daawo ayay kaga tahay banaankana daawo ayay kaga tahay waxaan rajeynayaa insha Allah muuqaalkeena intaan kusoo koobo waxaan rajeynayaa insha Allah inaad wax badan ka faa'iideysateen haddii markii kuugu horreeyay aan soo booqatay ay tahay subscribe noo saar gambalaalkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan haddii familka ka tirsan tahayna like noo saar asxaabtaada u sii share garee soo dhawaada